balqabso uga dhiyo sidii adhiga weeyaane aydaa ciyaysa hadduu dhama inankeenu afrikadan ilaahow maxaa laga abuurayay allahayow alhuumiyo maxaad inta ugu yeeshay allahayow awoodiyo maxaad aalad ugu diiday ummadda adeebow maxaa lagu kala eexday ugu horeyn kusoo dhawow channelkayga waxaan rajaynayaa inaan wax kala faa'iidi doono waxaan kaa codsan lahaa haddii aadan horay u subscribe garaynin inaad channelka subscribe garayso please. Yeah, it's free. wax lacag laga qaad maayo. Yeah, it's completely free. So please, just do it. Yeah, it's like, yeah, right there. Is it this way or this way? Which, yeah, anyway, yeah, just subscribe, please. I think it's this way. Yeah, yes, yeah, it's here. Please subscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. maanta waxaan rabay inaan bal wax yar ka idhaahdo arrin in badan maankayga ku soo laalaabatay maskaxdaydana aan ka bixin. arrintani waxay tahay waxaa sababay xaaladda iyo wadciga ay ku jiraan ama ay ku jirto Soomaaliya muddadii sanadkii 30 sano ama 31 ilaa 32 sano la soo dhaafay ee ugu dambeysay. waxaa marba amaankaygu qaadan waayay in ummad intaa la egi ay ku noolaato ama ay ku sugnaato wadciga sidaa u liita muddada aadka iyo aadka u dheer. waxaa wax la yaab la ila noqday fajicsana ku noqday maankayga in Soomaaliya ay noqoto ama ay ahaato waddanka adduunka ugu liita celcelis ahaan. adduunka waxaa ka jira 196 waddan oo qaramada midoobay ay aqoonsan tahay. waxaa marra maankayga geli waayay aad iyo aadna igu soo noqnoqotay iguna soo laalaabta waxa sababay in Soomaaliya ay noqoto waddanka adduunka ugu liita. waxaa jira si adduunka loo qiimeeyo waddan walba nolosha dadkiisu sida ay tahay, waxaana lagu qiimeeyaa wax loogu yeedho Human Development Index. Human Development Index waa number intiisa badan jajaba ama fraction oo u dhaxeeya eber iyo hal. waddan walbana waxaa la siiyaa asagoo lagu qiyaasayo nolosha ama tayada nolosha waddankaasi sida ay tahay. wadamo kullama numberkaasi uu u dhawaado hal waa kullama waddankaasi noloshiisu tayadiisu ay wanaagsan tahay. kullama numberkaasi uu u dhawaado eber waa kullama tayada waddankaasi ay xun tahay ama ay liidato. haddaba Soomaaliya waxay numberkaasi ka haysataa eber dhibic 285. numberkaasi wuxuu ina dhigayaa waddanka 6aad ee adduunka ugu xun marka laga soo qaado 170 waddan ee laga sameeyay numberkaasi ama laga sameeyay maxay ahayd statisticskan ama celceliskan. marka waxay dunida ummad ku noolayd madow iyo cadaan, Africans, Asians, like Europeans, inaynu noqono dadka adduunka ugu liitay. waxaasi waa wax kulli aniga maankayga geli waayay, waana wax aan u waayay turjumaad. haddaad eegto ammaanka ama waxa loogu yeero safety indexiga Soomaaliya, ayada laftigeeduna aad iyo aad ayuu u hooseeyaa ama u liitaa. oo waxa lagu tiriyaa wadamada adduunka ama waddanka adduunkaba ugu liita amni ahaan.
nambarka amniga ee la siiyey Soomaaliya waa 41.37 waana number aad iyo aad u hooseeya dhammaan inta badan wadamaduna dadkooda waxay uga digaan inay u safraan ama tagaan Soomaaliya waxa kaloo aad iyo aad u sareeya macdalka ama celceliska dambiga ee Soomaaliya oo wuxuu gaadhaa ilaa 60%. marka waxaan oo dhan marka isku soo celceliso waxay turjumayaan ama ina huweysiinayaan shaatiga ah meesha aynu maanta naalo. haddaad u timaado saboolnimada ama dadka Soomaaliyeed faqriga iyo dhibaatada ay ku jiraan waxa uu ku tusinayaa asaguna inaynu nahay dadka adduunka ugu liita nolol ahaan. waxa lagu sheegaa 73% dadka Soomaaliyeed inay ku nool yihiin waxa loogu yeero waxa ka hooseeya khadka faqriga ama khadka saboolnimada. 73% waa number aad iyo aad u sareeya aynuna mudnayn in waxaasi laga gilgisho maxay ahayday lagana dagaalamo oo laga dhiidiyo. caruurteenu waxay aad iyo aad maxay ahayday da'doodu inta aysan qaangaarin ay u dhintaan cudurro iyo maxay ahayday asbaabo ama sababo fara badan. waxaa lagu sheegaa child mortality-ga Soomaaliya inuu yahay midka adduunka ugu sareeya ama kuwa adduunka ugu sareeya kuwa ugu dhadhow. oo waxaa la sheegaa in 117 caruur ay dhimato 1000 caruuraba ayagoona gaarin da'da 5 sano. marka waad garan kartaa numberkaasi inuu yahay number aad iyo aad u sareeya. waxaa kaloo la sheegaa ama laynagu tiriyaa inaynu nahay wadamada adduunka ugu hooseeyo life expectancy-gooda ama cumri qaalibkooda ama qofku inta uu noolaado. oo waxaa Soomaaliya lagu sheegaa cumri qaalibkeedu inuu yahay 57.7 waana number aad iyo aad u hooseeya asaga laftigiisu. adduunka intiisa badani ama adduunka wadamadan hormaray sida maxay ahayday Canada ama United States ama inta badan Europe waa 84 meelahaas way da'doodu oo cumri qaalibka dadku inta ku dhintaani waa 84 meelahaas. marka dhibaatadan iyo rafaadkan iyo waxaan ina haysta maxay ahayday inaan laga gilgilan ama inaan la arag oo qof walba uu dantiisa ka raacdo waa waxaysan mudnayn. waxa kale jira wuxuu yahay qofka Soomaaliga ahi ma haysto caafimaad ma haysto shaqo oo maxay ahayday uu ka soo galo dakhli uu reerkiisa ku masruufo ma haysto wax shaqo ah ma haysto ammaan ma haysto waxyaalaha muqawamaadka asaasiga u ahaa ee nolosha ma haysto. haddaad u timaado dhanka waxbarashada iyo aadista caruurta ee dugsiyada asag laftigiisu oo wax aad iyo aad looga argagaxo. waa wax dhammaanteenina inteena badani waa inteena nugule ama u feejigane aynu arki karro. macdalka literacy-ga ama dadka wax akhriyo waxna qora Soomaaliya waxaa lagu sheegaa number ka yar 40 oo taas waxay ka dhigan tahay boqolkii qof ee Soomaaliyaba dadka Soomaaliyeed ku nool inta iminka ku nool haddii la soo wada qaado dhammaantood oo hal meel la isugu keeno oo laga soo qaato maxay ahayday 100 qof waxay ka dhigan tahay 40 ka mid ah 100 qof ayaa wax akhrin kara waxna qori kara ama number ka yarba waxa laga yaabaa numberkaasi 40 ma gaadhsiisana. marka waa garan kartaa ummad uu joogo literacy rate-koodu ama dadka wax akhriya waxna qoraay ay maxay ahayday macdalka ummiyadoodu uu ka yaryahay 40 waad garan kartaa waxa ay qaban karaan waxa ka dhalanaya dhibaatadaas waxa aan hore kor ku soo sheegay oo ah maxay ahayday faqriga iyo gaajada iyo maxay ahayday dagaalada iyo crime rate-ka aadka u sareeya ayaa ka dhalanaya. waxaa la sheegaa in caruurta ay ahayd inay dugsiyada aadaan 42% kaliya ay ka aadaan oo waa sidii hadda aan sheegay haddii aad 100 caruur soo qaado 42 kaliya ayaa dugsiyada aada. oo waxay ka dhigan tahay intaasi oo 58 kaleeto ma aadaan dugsiyada waxay jiifaan dariiqyada ama waxay isku dayaan qaarkoodina inay u soo raadiyaan waxay cuni lahayd hooyooyinkood iyo qoyskoodu.
wax ay ahayd in dubkeenu uu ka dubaaxsho aynuna maxay ahayd ka gilgilano kana qashcariirano dhibaatadaas aadka u faraha weyn ee haysata caruurteena badidood dad u timaado passportka Soomaaliya asagana waxa lagu tiriyaa inuu yahay baasaboorada adduunka ugu liita ama ugu taagta daran oo qofka Soomaaliga yahay waxa laga yaabaa inuu u suura gali weyso xarfiyan inuu dhoofi waayo ama wadanka uu ka bixi waayo wax haduu awoode aduu damco inuu wadanka dibadiisa u dhoofo wixii raba u dhoofee intooda badan caafimaadka oo baasaboorka Soomaaliya intiisa badan ma shaqeeyo taagna ma leh awoodna ma leh mana badna qofku inuu ku helo fiiso haddaad u timaado currency ama lacagta Soomaaliya ayadoo sidoo kale waa lacagaha adduunka ugu taarta daran ama ugu xun dhowr wadan baa inaga lacag hooseeyo oo Iran iyo Venezuela oo ay ka koob yihiin labada wadanna waa cunaqabatayn iyo siyaasad kale ayay lacagtooda ku hooseysaa mooyaane wax inaga iyo lacagteena la barbar dhigi karo ma ahan waxaan ku soo gabagabeynayaa aayadda Quraanka ahayd ee Ilaahay ina leeyahay إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إلهي وحي نو شيء هيا إني أمد ولباي أي تهي إني أيضو إسبد الشو أين كشقيسو وناقيدا وحان كسو قبقبين هيا on oran lahaa qof walba oo Soomaali waxay tahay inuu baraarugo hurdadana uu ka tooso oo uu isku dayo ugu yaraan inuu ka bedelo nolosha caruurtiisa nolosha uu asagu ku soo noolaa ama ay waalidiinteen ku soo noolaayeen hadduu qof walba isku dayo in mataqaanaa caruurtiisa iyo ehelkiisa uu wanaajiyo ama uu ku barbaariyo nolol wanaagsan oo la jaan qaadi karta noloshan adduunka inagana hadhowdii aayaheena wax ka tari karta waxaas wuxuu wax badan ka bedeli doonaa aayaha nolosha qofka Soomaaliga ah ee guud ruuxani wax lagu noolaada ma ahan noloshan aynu ku noolahay ama qofka Soomaaliga uu ku nool yahay nolol lagu noolaada ma ahan nolol ay tahay qof sharaf leh oo mataqaanaa aqli iyo dameer leh ay tahay inuu u dulqaato ma ahan ruuxan oran lahaa war hurdada laga tooso waxaan oran lahaa sidani waxay mudan tahay in la iska bedelo waxay mudan tahay in laga dhiidiyo waxay mudan tahay in laga dagaalamo waxay mudan tahay in bugaagta iyo dadka aadamuhu waxay qoreen la akhriyo si hadhowdii looga dhuxul qaato oo nolosheena aan isku dayno inaan ka bedelo waxa inaga khaldan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته